waxbartaan 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 barwaaqo gaarne السلام عليكم guys kusoo dhawaada casharada imtixaanka online-ka aan nooga barateen haadana kale in idin soo gudbino casharkeeni maanta waxaan uga hadli doonaa sida loo baaraa malaria adoo isticmaalayo Jimsi stain inta aan u guda galin ka hor casharka waxaan idin codsanaa hadda channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe iyo saar waxaan ka hadlaynaa malaria maxaa lahaa malaria waxaa loo qaybiyaa afar noocood waxaa soo HBC dhahay Plasmodium waxaa loo qaybiyaa Plasmodium falciparum Plasmodium vivax Plasmodium oval iyo Plasmodium malariae marka afartaas aan rabnaa qaabkee u arki kartaa sharaxada inaan barno marka fadlan muuqaalka ila daawo waa ujeedaa waxaan soo qaatay slide-kan malaria markaad baarayso waxaa u baahan tahay slide-kan waxaa ku qoranaya magaca patientka aad u baahan tahay ama ABCD ama AD dhiiga uu ka kala day karaa marka waxa qasay dhiiga markaas u luxdid maadaama oo kala isbitaalka ku baartid markaad qastid kadib 1 drop oo dhibica geeska ku dhibcinay dan marka ku dhibicay slide kala soo qaadanay slide-ka asaas oo kor saare marka u kor saartay gadaal u soo celinay nidaamka u soo celiyo uu faafaa marka dhiiga geesaha dhan ku faafaa marka dhiiga geesaha ku faafo hal mar asii diyaarad amal u kacay marka si diyaarad amal u kaco oo wave asiyo waxa ay soo baxayo layerkan idin muuqda arkoosin layerka idin muuqda in soo baxayo tan waxaa loo yaqaanaa thick film loo yaqaanaa layerka weyn oo meesha ku balaaran waxaa loo yaqaanaa thick film madka yarna waxaa loo yaqaanaa thin film loo yaqaanaa kaas marka waxa waaye preparation of malaria si loo diyaariyaa markii la rabo in la diyaariyo stainka marka mid kasta wuxuu ku siinaa marka structural yacni baalka loo yaqaano thick wuxuu ku siinaa structural for details u baahan tahay macluumaadka aad u baahan tahay inaad ka fiirisid thick film ku siinaa kan kalena macluumaadka wuxuu ku siinaa thin film oo positive iyo negative ugu baahan tahay tigana waxaa laga ogaadaa waxyaabaha aad u baahan tahay in specieska shape uu ku noqonaa maadaama complex oo yahay waxyaro dhiig isugu imaado oo yahay marka labadan taas oo kala duwan yihiin thick film iyo thin film labadooda marka aaswan slide ku sameeysan marka ujeedin waa soo qaadan baartaan kor marka waxa u gudbeynaa aan stain ku darayno ujeedin waxaan sameeynaa stainka ku shubay stainka marka ku shubtid 2 daqiiqo sugi hal ilaa 2 daqiiqo sugi tin stain waxa loogu talagalay 2 daqiiqo la sugo dan waxa ku daraa alcoholada haysto 2 daqiiqo markay dhamaato si oo wasaqda stainka oo iga qaado wasaqda stainka soo iga nadiifiyo markaan dhaqaayo dan ilaa daqiiqadaas markaan sugo kadib waxa dhacsiina markaan dhaqo oo tab waterka qaabkaas lagu dhaqaa markaan si fiican u tirtiro gadaalan ka nadiifina intuu ka qalalayo sugaa markuu ii qalalo waxa soo qaadana microscope-keyga marka soo qaato dan waxa bilaabaa inaan microscope ku fiirinayo isha boqolaad wax walbo stain oo midabeysan waxa loogu talagalay lagu fiiriyo isha boqolaad ku fiirinaya isha boqolaad marka ku fiirisid intaada ku fiirin ka hor oil immersion ku dhibcina ujeeda saliidan waa iska taqaanin kadib waxa kor saara isha boqolaad markaan kor saaro waa kor u soo qaada sida loo hore u sharaxnay marka intaan sameeyo oo aan kor u soo qaado waxa ku soo muuqana ujeedin jaamid faaray oo mid walba marka waxyaabahan oo qaar RBCs loo yaqaana RBCs-ki isku qaldan mid kastaba RBCs-ki soo kuwana RBCs-ka oo falciparum vivax malaria inta ku yaala marka maadaama oo mid kastaba RBCs-kiisa u jeedid badana reportka RBCs wax kala isku qorna marka ringa fumiska la raadinay kan waa baalkan san wareegsan ringiska oo sida faraanti ama u sameeysan mid labada gees kuuska faraanti uu leeyahay kuwan ringis fumiskana waxa loo yaqaanaa Plasmodium falciparum iyo Plasmodium vivax loo yaqaanaa iyo Plasmodium malariae kuwana targetkeeda oo tin layer laga baara iyo Trophozoitka falciparum makaya midka oo vivaxna u jeedin falarta midka oo malariae u jeeda waa kala duwan yihiin badana kuwan waa la arkaa Trophozoitkan waa aragnaa oo Soomaalida aad ugu badan yahay Zijon marka condition-kan wuxuu gaara markoo qofka uu ku fogaado malaariyada xaalad ay qofka muddo heeso malaariyadiisa shaybaaristayaasha aad u jecel yihiin oo soo muuqana u jeedin waa very clear way marka qaabka ugu fiican
oo resultiga haddaad fiirisid malaria la heli karo waay. midka koowaad dadka aad u jecel yihiin. midkan u dambeeyana jametocyte waaye, banana shape uu ku siinaa kan falciparum-ka, banana shape u arkaysaa. midkan kalena ujeeda ringis oo wareegsan waaye oo convex ah, plasmodium vivax iyo plasmodium malariae waa ujeedin asagana xoogaa waa ka midab duwan yahay oo xoogaha very complex waaye, aad uu isugu dhagan yahay. marka waxaa ku fiirinaya microscope-ka aa ku arkaya. marka waxaan oo dhan hadda sheegayna waxaa loogu talagalay in oo lagu fiiriyo microscope-ka. marka waa kaya qaabkaasaa loo baaraa. anaga waxaa aad u isticmaalnaa inaan wax ku fiirino jametocyte-ka iyo ringiformiska. ringiformiska aad u isticmaalnaa, aad aan u naqaana. marka waxaa laga rabaa afarta qeybood oo malaria lagu baaro inaad taqaan, afarta qeybood malaria laga arko ama afarta shape nooc laga arko malariada mid walba inaad taqaan. casharkeena intaas kusoo gabagabeynayna, waana mahadsantihiin. na dhiirigeliya, sheer gareeya, commentiga noogu reeb wixii su'aal aa qabtiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.